salaamayaa oo u mahadcelinayaa ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ee ii doortay inaan hogaamiyahooda noqdo. waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhalinyarada reer Hiiraan asal ahaan ka soo jeeda ee ku sugan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee soo qaban qaabiyay munaasabadan aad u quruxda badan ee igu taageerayaan. waxaan leeyahay waan idinka qabaa, waan idin mahadcelinayaa mar walibana garabkiinan taaganahay. waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada dawladda Soomaaliya oo maanta ayaguna waqtigooda inala qaatay munaasabadana nagala soo qayb galay. ururada kala duwan, ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed, ururka midnimada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed, ururweynaha haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan kaloo si khaas ah u salaamayaa ardayda, gudoomiyaha ardayda dhalinyarada gobolka Hiiraan. guud ahaan waan idin salaamay, waan idin mahadcelinayaa. munaasabadan quruxda badanna waan idinka ajiibay. waa mahadsantihiin. ururka gobolka Hiiraan haddii aan ka hadlo, marxalado kala duwan oo soo maray, heerar kala duwan aan soo marnay, dhibaatooyin fara badan oo soo maray. wuxuu ku soo shaqeeyay marxalado kala duwan oo aad u adag, ayadoo la wada cabsanayo oo aan cidna bixi karin ayuu ka soo shaqeeyay gobolka Hiiraan. waxaan xoogga saaraynay mideynta iyo horumarinta gobolka Hiiraan. waxaan aad uga shaqeynaynay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ay u diyaar garoobaan inay ka qayb qaataan dib u soo celintii caasimadda gobolka Hiiraan ee Beledweyne, sidii ay ahaan jirtay in dib loogu soo noqdo, dadkeedii la helo, dadnimadeedii la helo, karaamadii ay adduunyada iyo gaar ahaan Soomaaliya ku dhex lahaydna dib u soo noqoto. waxaan aad ula soo shaqeynay ciidamada Hiil Walaal ee gobolka Hiiraan oo la-aantood aysan suurtagal noqon lahayn inuu Hiiraan dib ay usoo noqoto marxaladii ay ku jirtay. waxaa kaloo la soo shaqeynay ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan ciidamada militariga, booliska iyo nabad sugidda. inta waan la soo shaqeynay inagoo aan cabsanaynin oo aanan ka baqanaynin inaan dhimanayno, oo aan ognahay inaan dhimanayno laakiin aanan ka baqaynin inaan isla saacadaas dhimanayno. maxaa yeelay qof waliba waqti uu leeyahay. waxaan nafteena ku xirnay Allah, kaasoo asiga xilligu uu soo doono siyaabooyin kala duwan usoo mari karo. cidna kama baqaynin, cidna uma cabsanaynin, cidna kama cabsanaynin. waxaan u diyaar garownay inaan u dhimano dalkeena, dadkeena iyo waliba gobolkeena inaan u dhimano. Hiiraan bishanka anaga yani waxaan higsanayna waxaa kamid ah ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxay higsanayaan inaan soo nooleyno midnimadii ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay tahay Hiiraan meel ummadda Soomaaliyeed taariikh kula halgamaa fara badan iyo madaxdii dalka soo martayna ay tahay meeshii ay ku dhasheen kuna soo barbaareen. inaan martigelino howlaha lagu nabadeynayo guud ahaan Soomaaliya, inaan martigelino mideynta dhalinyarada Soomaaliyeed, inaan martigelino inaan isugu keenno Hiiraan oo ugu baaqayna dhalinyarada Soomaaliyeed meel waliba ay joogto, inaan anagu maanta gogasha dhigeeno ka Hiiraan ahaan. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyarada ila soo shaqeysay. gaar ahaan gudoomiyihii hore ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraalo oo nin badan soo wada shaqeeyay. waan u mahadcelinayaa. waxaan rabaa dhalinyarada reer Hiiraan inay aqbalaan in maanta gabar ay hogaaminayso inay aqbalaan. kan waxay taariikh u noqonaysaa Soomaaliya, waxay taariikh u noqonaysaa inaan anigu hogaamiye dhabaha noqonayo. waxay taariikh u noqonaysaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay raadsan karaan xaqa ay ku lahaayeen Soomaalida dhexdeeda ee dhalinyarada. waxaan mar waliba diyaar u ahay horumarinta iyo mideynta dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan. meel waliba oo dhalinyaro joogto waxaan diyaar u ahay inaan ka qayb qaato, anoo aan waxba dhaqaalaha ku xireynin. diyaar waxaan u ahay dhaqaalahayga inaan ku bixiyo, nafteydana inaan u huro, midnimadeedii sidii Soomaaliya midnimadeedii dhalinyarada lagu soo celin lahayna aan galo. waxyaabo muhiim ah jiro oo aan rabo inaan ka dhawaajiyo. Hiiraan, ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, waxaan rabnaa inaan ku sifeyno sidaan hore ugu sifeynayba, inaan ka shaqeyno cadaaladda iyo midnimada dhalinyarada gobolka Hiiraan, inaan ku shaqeeyo shakhsiyad la-aan, cadaalad, sinaan. gobolka Hiiraan saqiir iyo kabiir inay ii siman yihiin, inaan baabi'iyo dhibaatada ah qabiil oo dhalinyaradu nin walba god ugu jiro oo odayaasheena ay nooga sheekeynayaan inaan qabiil kala nahay. qabiilku waa wax diiniyan qoran oo kitaabka munazalka ku cad,
laakiin maaha in la qabyaaladeeyo waa tan facana naga reebtay ee 24 sano aan burburka dalka ugu jira dhalinyarada Soomaaliyeedna ay u dhibaatooyin yihiin marxaladaha kala duwan ee maraya inaad arkaysid oo tahriibka iyo dhibaatooyinka la maraya hormuud u noqdeen yani hormuud u yahay dhibaatooyinkaas oo qabiilka lagu qabalqabay Soomaali waa wada dhalatay maanta hadii cid walba ay abtirsato isku meel ay ku soo dhac laba oday saddex oday isugu imaanayaan yaana nala kala wadin dhalinyaro aanu midowna cadowgeena aanu midowna horumarkeena aanu midowna sinaanteena aanu u ogolaano qof kasta oo rabo hoggaan inuu ka qabto gobolkaas inaan anagu u baneyn karno waxaan ballan qaadayaa marka inaan anigu xukun doonahay waxaan ballan qaadayaa isbedelkan kadib maanta ay taariikhdu ku beegan tahay janaayo labadeeda ay ku beegan tahay waxaan ballan qaadayaa maanta maalinteeda inaan xil heyneynin ee cid walba u soo diyaar garowdan aan ku wareejin doono mar labaad iyo mid saddexaad waan idin mahad celinayaa waadna mahadsantihiin waqtigiina quruxda badan waana idinka aqbalay munaasabadan cid soo qaban qaabiso dhalinyarada reer Hiiraan ee gobolkan ku sugan mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahad celinayaa dhalinyarada waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan midnimo inay ka shaqeeyaan cadaalad waxaan rabnaa dhalinyarada gaar ahaan gobolka Hiiraan ka soo jeedo sidaan colaada gobolka ka socota aan u dhex istaagi lahayn aan u joojin lahayn dhexda u xirano anna way iga go'an tahay dadka aan ka soo jeedo ee dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan rabaa inay u diyaar garoobaan colaad wiil kuma dhashay wiil aan ku dhimanayo innaga dhalinyarada aan loo kala sheeko xumeyn meel ma kala jirno waxa la baabi'inayo qoryaha laga dhigayo qoryaha la isugu dhiibayo waa annaga maanta aan u midowna cadawgeena Soomaaliya ma u baahna hadda kadib in qabiil iyo dhibaato ay nala qabo ma u baahna waxaan u baahanahay midnimo waxaan u baahanahay nabad waxaan u baahanahay waxbarasho waxaan u baahanahay cadaalad iyo sinaan cid ka sharaf badan ma jirto cid ka sharaf badan ma jirto qof kasta Ilaahay wuu karaameeyay wuxuuna ugu karaamo badan qofkiina kiina ugu caabudka badan marka waxaan u baahanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay u fahmaan gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan bari hadaan maanta idin hogaamiyo bari hoggaanka waa idin dhigayaan u sii diyaar garooba waana maasantiin